السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر هذا مقال عصب فضلا هذه تمركي بوريس مقال كان أدا وتو حنكا عصني أنا لايك صرتو كدبنا channel كا سبسكرايب صرتو عشر كان ما أنتم حنكو برام دونا وعن هرؤسي دونا عشر كان عشر كوري يعني كسر برامي tenses كا أنا هو صوب برامي past tense и future tense present tense и future tense سارجينا يا present tense waxaan dhahay future tense haddana waxaan baran doonaa past simple tense ama past tense past tense kan waxaan macnaha aan uga hadli doonaa mise aan ku qeexi doonaa wax la yiraahdo actions oo dhacay shalay ama daraad tusaale macnaha haddii aan macneeyo past simple tense past waxa la soo dhaafay wax shalay dhacay ama daraad okay wax oo la soo dhaafay waa so we use it past simple tense kan we use it waxaan u isticmaalnaa for actions ficila that happened kuwa soo dhacay yesterday shalay or before yesterday or before daraad ama saa dambe and are finished macnaha waxa oo hore u dhacay sarjina ina fahanteen haddii aan kugu celiyo past simple tense waxaan u isticmaalnaa ficilo kuwa soo dhacay shalay ama daraad ama wixii ka dambeeyay kuwaasoo hore u dhacayba macnaha waa dhamaadeen finished waa ficil dhamaaday oo dhacay ana ficil cusub had bilaabanayo maahan okay formula-ka ay isticmaal marwal formula-ka macnaha wuxuu ka caawinayaa waxyaabaha loogu baahan yahay inaad sameyso past simple tense ama past tense subject waa qasab subject sidiisa waa qasab waa ficilka qofka sameynaya waa subject taas lagu daro past verb okay verb waa ficilka oo ficil waaye ficil markasta wuxuu u kala baxaa mid hadda dhacaya mid dhici doona iyo mid hadda aad soo sameysay oo soo dadaal oo shal amal aad sameysay so past macnaha waxa waa ficil hore loo sameeyay sida played waa ciyaaray went waan baxay ama waan aaday so waan arkay so waxay leeyihiin present tense leeyihiin intaan qaar waxa aad played ama waxa waa play ajiro oo ay ku jirin ed ku jirin went go waaye present tense kiisa so see waaye so fantastic rajayna so example ku ugu horeeya aan sameyn doono waxaan doonaa number 2 I played football sida meeshaan ku arkaan waxa waaye tan koowaad soo qaadan waxa waaye I played football waxaan ciyaaray banooni yesterday so I played noqonayso laakiin I played macnaha ficil dhacay waaye waxaan ciyaaray banooni yesterday haddaad rabto ka reebi kartaa yesterday oo maalin waa sheegi kartaa oo la soo dhaafay okay she visited her grandmother she ayada visited waxay booqatay her grandmother ayayade hooyo dhashay so she visited her grandmother ama ayay hooyo dhashay ha ahaato ama ayay haba dhashay ha ahaato okay example-ka saddexaad they didn't watch TV maysan daawan iyaga TV so they didn't maysan sameynin watch TV inay daawadaan television TV so shalay camal waxa waaye hebel idoo isku haystaa maqashay walaal shalay TV ma daawatan arisa may iyaga TV maysan daawan oo ah shalay TV maysan daawan okay did you go to school kana marka kika noqonaa did kana waxa waaye past tense do wada noqoto sida cashirka hore ku soo baranay do aragtid waxa waaye do you go to school school ma aadaa waa taas so tan qada did you go to school ma aaday shalay waxaad tan kartaa marka did you go to school yesterday shalay school ma aaday ay noqonay marka okay ina fahanteen rajayna taasna okay intaas markii aan ka soo tago mar walba ay sheegay cashir walba aan sameeyay wuxuu leeyahay exercise macnaha waxa waaye waa lagu testgareynaa ardayda qaybta commentiga ay inoo soo reebayaan jawaabaha sax mar walba waxaan sameeyaa hal su'aal aan ka sameeyaa inta kalena idin kale idin diiba saa ugu soo jawaabtaan so put the verbs in past form koobabkan aragtaan waxa ku jira verb taqaanaan verbkan waxa ka dhigaysaan qaab past qaab sida soo dhaafay tusaale we inaga dash wallahi play lagu gali football yesterday inaga waan ciyaarnay banooni yesterday so aniga aan ahaan lahaa meesha waxaan dhihi lahaa played ana raacina meeshan ed so played adila played kuma qori karo so waxaan dhahna
we played football yesterday taas waxay noqonaysaa we played football yesterday taas waa midda koowaad midda labaad waxaa waaye she dash go to school so not am isbedelayso so daarta waa ku darsan kartaa ama waa tiri kartaa laakiin muhiimadda ficilka waxaa waaye go gaas waa ficilkaas waa isbedelaa school to school she dash go to school inta dhashaa ku jirto they see the movie meeshaan did they have they mid walba noqon kartaa so sidaana waa inay isbedeshaan so my father aabahay cook dhashaa meeshaasi cookan ku siiyey cookta waa inay noqotaa qaab pasti ah dinner casho so muuqaalka mar bino dheeraada muuqaalada hore aan sameynayay waa muuqaalo in badan aad looga cajisi karo 15 daqiiqo soconaya waxaan rabaa muuqaalka inaan inta kusoo koobo muuqaalka iska xigana intaan kulmayno waxaa idin leeyahay sidaas nabadgelyo muuqaalka like saar comment iyo subscribe comment iyo haddii aad wax ka fahmin waxaad ii kartaa ma fahmin si cashirkiisa dambe haddii aan sameynaya aan idinkugu soo celiyo oo aan idinkugu sharaxo aad mahadsantihiin subscribe noo saara channelka like share comment maca salaamo